هذا غنم اكل انسان كيف اكل انسان غنم والله ما اكل يعني اريق عنا يا تاينا انا انسان سيكو عنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقة وولاشين الزيو اسكسو نقط ونكسن قفي عن وجرة قف حول بس وجرة wadaadkii marka asaga waa xun yahay ama xumo waa qof fiican oo tayiba maasha allah ilaahay macnaha ha barakeeyo marka markuu saas sameeyo markaas wuxuu leeyahay si naxariis leh igula hadlaa wuxuu leeyahay ya aadam billaah calayk allah yarda calayk لو قلت لك سوي كذا بالله عليك سوي كل يوم تقول لي يعني سوي طيب ايش الطيب هذا؟ طيب كترتني والله كلامك كله طيب كلمة طيبة بس لكن نبقى ايوه نبقى فعلا فعلا odayga markii waxaa dhacday waxaan ku iri haye waay hayaan dhahay marka luuqad markuu ila hadlaba oo aan fahmi waayo waxaan sameynaa telefoonkiian wacay saaxiibkii aan wacay markaasaan dhahay saaxiibo shiil maxaa la dhahaa shiil haddii lagu dhaho waa qaad wax qaaditaanka waxaan qaad shiil carabi macnaha shaawa sacuudiga shiil markii lagu dhahaa waa wax qaad markaasuu armi haddii lagu dhahaana waa tuuris برا هدي له أنا وبنانك ساسو يقوم عنين جري مركز يركي صاحبك يرفع عنه ما شاء الله أدو أركوا سلامة يا آذن أرى الله كل خير الله سي وأن يقول علصوا وسلامة يا هدو أركنا وحاهم لا هي كوميونتي هوس عن كأركا سلامة أدو جوابت معنا شيء أو يسو ردية نكدد يركي صاحبك ها سيديو مركز أو يقول هذا جري هذه أفعربي ماشي حوا كوب برتا af carabiga xoo markaa meesh ku bartay horta wiliga allah luqad ina baratid hadaratid waxa waaye dad luqadaas u dhashay hadaad dhaxgashid wallahi saahila ku baranay bilooyinku ma qaadanaysa bas odaygii waan bartay luqadii macnaa shaaw jajabsi aan ku bartay odaygii ma sha Allah tayyib uu ahaa xoolahaas markay yimaadaan u baan macnaa shaaw birshiinkaas iyo shicirkaas iyo biyihiis iyo waxooda aan siin jiray kadib ma sha Allah odaygii wuu jeclaaday wuxuu yiri ma sha Allah ninkan wuxuu yiri maadaam nin tayyib uu yahay oo ma sha Allah uu yahay ha kula cishaba wuu iimaad wuxuu yiri ya ibni wiilkaygiyo wuxuu dhahay waaxid muxtarama tahay qof fiican aad tahay oo yaani wiil ma arkin qof adoo kala ah waxaan ka rabaa inaad ila noolaatid gabaran kugu daraya oo Soomaaliyeed oo ila joogto marka shaqaalo marka gabadha waa Etoobiyaanad قال بالكم waxa way dadkan Sacuudi taga Soomaalida waa lagu qaraabtaa Etoobiyaanka Soomaaliya ku qaraabtaan markay galaan Yemen waa laga nacib yahay Sacuudina waa laga nacib yahay marka gabadh Etoobiyaan la joogto gabadhu waxay tir Soomaali baan ahay bas marka wuxuu igu yiri fi wahda معايا Soomaaliya shaqaal معايا بس هزوج لك وانت ما هتنزل في العمارة هنا. maxaa iyada nin guursadaa raba meetir markaas maxaa uu raadinayaa marka asagii wuxuu yiri gabadhan wiilkan isku dar wuxuu leeyahay gabar ay joogto Soomaaliyeed ah oo ila degan dadkan Carabi garanayna u fasiraya guri igala degan gabadha waxay macnaa shay Soomaaliyeed waaye waa iskiin hadashiinaya waa isku keenaya waa isku aroosinaya waxaan xabadaan ridaya arooskii macnaha sida oo farxada ay sameynaya cimaaradaas macnaha iska wuxuu yiri ninka degay marka wuxuu yiri hadii baasaboor aad helaysidna keenso ana ku soo saaray iqaamad wuxuu yiri ana kafiil ka naqanayo cidna kuma dhibaateynaysa uu iga tagay xaasaskiisa u sheegay xaasaskii markuu u sheegay waxay u sheegeen gabadh iyo u sheegeen gabadhi markay u sheegeen markay raashinkii iyaga ii soo kariya oo guriga carabta laga soo kariya waa ii soo qaada waxa ii soo saaraa meel oo derbi meesha ah yaa ii saaraa waa ii yara ya aadam taal qudi qada ya aadam taal qudi fatur ya aadam taal qudi casha intaas bas marka horta dadka saa horeyda ku sheegaba ma wada sinna marka naagaha marba tookaba midaa karis raashinka habarta ugu weyn
waxay sameynaysaa raashinkii oo shalay ahaa ayay macnaha quraac ahaan ii soo saaray meesha anna ma cunay xaggaas aan iska dhigaa waa reebkii oo shalay ka haray qubus ay ii soo qalalay oo shalay ahaa ayay ii soo qaadaysaa iyo caani waxbay ii soo saareen meesha ii soo saaraysaa tan qadada leh waa waxa waaye isha away miniyarti waaye waa xaaskii labaad waxay ii keenaysaa casho qado fiican dooro ama hilib iyo bariis casiir ay xaaga macnaha shaa oo kaamil oo insaan oo cuni kara bini aadam cuni kara duqdan waxay ii keentaa raashin oo yani ariga meesha jooga xitaa haddii la sii xitaa macnaha ku dhahay hadduu hadlaayo war naga tag waxaan cuni meynay ku dhahay yaal iisa أنا مركز على جنب أنا مركز أنا جرت إن كان قبضي إلهي معناها قضاء كمان دقيقة إلهي عشان إذا كمان دقيقة وأكيد عيسجر على جنب أنا الضغط مركز سوري بتوحي كان تبع على جنب واحد عربي عبرت وقت هدا حنا غير وحول بعبرني هدا حنا غير واحد يقولني بعبرني مركز أضيق جاي ما توكل وأسألين وين مركز أنا هاي عمي تعال عندي وإيه ما مركز ده أنا قنم أنا أري معه وش فيك يا ابني وش فيك هذا غنم أكل إنسان كيف أكل إنسان غنم والله ما أكل يعني أري عنا يا تاينا أنا إنسان سيكون عنا أري مركز وجبسنه يا حول أو شيء يا وضيق ويا مركز حرام عليك بالله عليك كم يوم ودهي ودوك الأكل ده مركز أنا والله كثير لا تصدق لا إله إلا الله مضحك عنك أنت صارتي لا حول ولا قوة إلا بالله لا ما تكلم معايا لا ما تكلم بدري وش فيك يا آدم والله بهدلتني يا الله ربنا سامحني يا الله من اللي جابك النهارده محن راي ساك معناها عليك كان والله أنا عارف اللي جابوك أنا عارف هذه العجوزة في البيت والله العظيم هي الله يقرب بيتك يا عجوزة الله يقرب بيتك وحول لي راشين كان وحكوك أنا وأخانا ويا دق ذا ساكوك أنت إلهي قرقد هبربريو إنكار قبطة وحير آسف هذا كذب وحي راشين حتى هدي أكو أرك تنلي أكو أرك يسوع شك بالله عليك حق أنا معنا إيش جاوا هاي صارين ما شاء الله هذا دمتين الله كون حرستان له وذات كاس هذا نوشاهنا عمري على راجيو كل واحد مالنا يا إنا بنتار مالنا يا كل إلهي معي أبدا وأي وقت يا سوق فين فحكي سوري تونسنا كسوري صح مركا وحن كرا يعني إلهي قبرك قوة يعني كرا نيو عم بو نيكي يردون إنه جبر إيجوريو ومعنا شيء هاوي غير كيس درتي وحناقي يعني وحوي دتك لغا مود هلايا صح marka waxaan ila haduu dhintayna jannada firdaws ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku bishaareeyo oo anaga ilaahay nagu ka kulansiyo tan kale marka waxaan dhacday gabadhiya marka anoo qadadii maalin soo qaadanayo ayaa macnaha naagihii waxay dhaheen aadan aan u sheegno sheekada oo macnaha aan dhahna gabadhii lagu dari lahaa waa tanay la hadal waa meesha fashilka uu ka dhici doono gabadhiya markaas waxa la ya aadam اصبر شويه مركز الله هيا مركز الله ان كلمتك عمك adeerka ma kula hadlay oo ma ku sheegay in macna ay sheegay gabar lagu guurin rabo Soomaaliyeed ah oo anaga ina la joogto aywa waa ay sheegay waay aan markuu si fiican u fahmay Carabiga markii waa iga babatay dhigay ka babatay mara macna sheegay xanaaq ku bartay iyo mara in sheegay aan telefoon saan saaxiibkay uu awaayo macna hal igu sheegay waxa waaye qalaas marka dhiban tahayna wax walba waa xifdinay صح danta ku xifdisiinays quraan maanta dugsiga markii lagu dhahaa aayadan soo diyaari macalinka u shiisan macnaha aad ogeey waxa waaye laazim waa diyaarinay suuradaas waa diyaarinay waxa waaye ushaas aba iska ilaalinay marka qurbaha marka joogtidna usha yeela mid tahay macalinka ku wata بس markii dambe waxa dhacday waxa hayanahay aan la hadla markaas af Soomaali baan kula hadlay hay walaasheedii ay barasho wanaagsan ani aadana lahaa adna magaca aan dhahay shib ay dhahday way ilaahay liweys
مركز أكوي عربتي أو حيدهن يا آدم نبقى تتكلم عربي يعني نبقى نفهم الكلام بينتكم نبقى نفهم مركز حنا طيب هذي إن حسن آذنو waxaad samaysaa walaalow macaane walaalkayo waxaad samaysaa af Soomaali ha ku hadlin af Carabi ku hadal si anagan aan u fahanno yani anaga waa idin la joognaa waxa ku hadlaysiin inaan fahanaan u baahanahay af Soomaali ha ku hadlin ee af Carabi ku hadal waayahan af Carabi aan kula hadlay marka waxaan ku dhahay gabar yahay ii waran fiican tahay markaas ay tiri alxamdulillah waa fiicanahay markaas aan Soomaaliyeed ma tahay markaas ay tiri ha Soomaaliyeed baan ahay markaas waxaan ku dhahay Soomaali ka xagee degtaa markaas ay tiri Muqdisho waxay iska naqatay meel dad walba iska sheegta maskiintu waa dhimatay wallahi kii macnaa sheegaa hoobiyo waa iska la tagaya kii qarax waa iska la tagaya Ethiopian afaan garinin waa iska sheeganooya kii macnaa sheegaa soo wareero Muqdisho iska sheeganooya dhibaato aan haysata dhibaato weyn aan haysto Muqdisho Allah ku naxariista amiin wallahi magacaaga waxa way hadii ay sheegaa oo la duugi karo marra la duugi lahaa laakiin lama duugi karo marka waxay tiri Muqdisho waaye waxaan Muqdisho waa weynta caasimad waaye waxaan ku yiri xagee ka degneed markaas ay tiri wallahi ana kunta saqiira yani لما بدأ الحرب طلعوني جابوني برا من الصومال markii waxay tiri aniga anoo yar kula anoo yar ayaa Soomaali liga soo bixiyay waa la soo kaxeeyay banaanka la keenay تربيت معناها شيء غير وطن بتاعي في الصومال معناها waxaa ligu soo rabaayday wadankii wadan aan ahayn marka luqadii mag ishaaway waxa waaye meesha Muqdisho meeshaan ka dignin ma aqaan okay markii waxa meesha iga soo baxday inaysan Soomaaliyeed ahayn صح bas markaas shiba iska dhahay iyadoo saas ay tahay ya odagii waxa ii keenay saddex qof oo Ethiopian ah oo soo sheegtay Soomaali markaas wuxuu yiri marka anoo baashi ay saa uu ciilaysa gabadhan macnaha Soomaaliya ahayo oo xitaa yani laazim qofka xitaa haduu Sacuudi Carabi ku dhasho laazim waxa la dhihi karaa ayna Soomaali dad baa degan waalidiintii baa kaga sheekeynaysa xaafadaas aan degnin laazim luqadii Soomaaliga u yaqaana laakiin bal samcana shaawi qof oo luqadii Soomaaliga aan ku leeyahay meesha sheegana dhibaatadeeda leedahay صدق قفوا يكين مركز يري يا ابني آدم كنت اليوم أنا فرحان والله أنا فرحان جيد أنا فرحان والله العظيم إثيوبيا يسوقك ها مركز فرحان مركز يري شوف من اللي جابك شوف جبت 3 الصوماليين والله أنا أحب الصوماليين جبت 3 الصومالي قال لي بالله عليك يقعد معك هتجيب لك قدر خليه يرتاح خليه يستحمم خليه يعني هم جاي السفر خليه يرتاح 3 يوم 4 يوم خليه معاك يعني عليا الشراب والأكل كله عليا خليه معاك وياها مركا عم كو ترجمه قفك انا عربي قرن انه وحو يري waxa jaan ku keen maanta balfiiriya aadano waxaan ku keenay yaa saddex Soomaali ah oo isha walaalahaaga ah oo soo tahriibay soo dhibaatoobay duruufta ka muuqato 3 maalin 4 maalin ha kula joogan raashin korkaaga ma ani korkeyga waaye cabitaan wax walba ha qabeystaan ha meel ku nastaan si wax walba aniga korkeyga waaye ha kula joogan waaye bas markaas waxa dhacday saddexdii qof markii asaga isla markii gaarigiisu qaatay wuxuu aaday magaaladu aaday khayr Allah ku siiya Soomaalida saa u jeceshahay يعني سعودي دم وجعلان لهن لكن بلسا وحواي دد وحاجرة يعني أو نوع هذا كلا كجرة من نعكرنا لكن ضدنا نعسي وانسو أرجني ونرش معنا شيء قوي أنفسو أرجني حنون كذا مركب وحواي شخصية هذا جار أهان وحن كل الله يرحم والديك وربنا وديك يعني إن شاء الله يوم القيامة في الجنة الفردوس إن تاس دعاء سجال دعينا هواية إن تن كلام مركب دبا وبحي جاري وقاتي راشين وحبو قدوني راشين كي وحي مركب قدوني وصول عبتي ويمادي راشين كي ينوك كان راشين كي عنين مركب
رجي صومالي اللي يمكن أنا وافرح سنة أول مرة أركوا مركي يجوه ريسا أركوا بعد 3 شهور 6 بلود كده ومركي يجوه ريس خوف مدو أركو فرحت أنا احتمالي دقو ملا بس مركز يري مركز السلام عليكم صاحبي الله يورم في عنتين حالتين حاجاكي ماتين مركز الله يا أخي نحن مش صوماليين نحن حبش أف عربي روي كسايا أف عربي يقانا نحن حبش بس صومالي حبش أخوان جيران جيران أخوان بس كنا مسافر يعني 3 أيام في الصحراء في كذا مدري إيش بس مركز عنا خلاص عنا أنا طول عن قاطع وحنا والله رمت هذا ودرس أنا والعوان هاي وحوي عنا إيشاو فريستا عنا راشينك مركز عيال أذا ودلعي ويريرا جري نوي ماذا مركز وحي أركان أنا وقف عربي كود هذلين أف عربي أنا وكود هذلين أركان مركز هنا فير يعني أنت جابين يبحين وأضيق وطجين وحي مغلي جري أخبارات كيف كم مغلي جري صومال لغة واحد والدين واحد ولا أنا دقن كودنا حلوة يعني ضد وحوة أسرة واحد واحد معناها صومالنا أسرة هل أسرة واحد هل قد يكون الله هل دين لين هل دقن لين كله اسكو مدواي إيه مغلي جري مركز لين يا أبي يعني كيف أنت مش قلت يعني الصومال لغة واحد دين واحد والإسر واحد وكل واحد ولا الحين بيكلمون عربي يعني بعضهم ما بيعرف لغة الصومال مركز ولا كل الصوماليين بيعرف عربي مركز لا والله أضيبوا درين مركز شكي يا قلي مركز انتو حناقي وحوير لا إله إلا الله يا آدم مركز أنا أي عمي مركز اللي معاك مين مركز أنا صومال كذاب لا تكذب علي دد كل جوج يا واي مركز أنا صومالي معناه شيء صومالي ما دام يكون إمامين هذا حنا أضيف معناه شيء هذا هدين إثيوبيان وهدين مركز أنا صومالي واي مركز وحده يبان أي شيء لا تكذب علي محابة أنت أي شيء صار هذا اللي قاعدين معك كفار استغفر الله كفارين ما أبقى قلي يطلع الحين هذا هيبحان هذا ناو مرة بيبا كل جوابا قالوا تاعي قالوا وايد مرة بي يقبح هذا حتى معنا شيء أو إذا شيء كأنا حتى معنا شيء أو عندك قبل كذا بح يوحنا لا يسوق مع أمه معنا حوه هالنستان لا هذا يقبح أما كوسو دقايا أنا بحناي خلاص وحن داي ضيق قيلنو يا رالي هذا وحين عنا هدار تام تجويك وقاطع بحا غير الله يسرال هذا وكا ضيق قيلنو يا واي هاي دهن وحودي قاتين وابحان وإيه مال مركب وحيري حسن وإن آذن وحيري صحيح واحد سميساب ويري دad كان تطحون واي أتسود ويستي هادو كات تجايان عاوي كو إيمانيان مسمار سوق هذا مسكحة هالكاس كاسارين بورس سوق هذا وكو قراعيان وحي كلين لعقتي أتشقيني إنت سأشقيني سكان ورومت دورات ما تدري وحي سمينا يعني الجيبك وحكي عنهم بدل ما جرى هالكاس مسمار لقى ساريا وحلو ليه وحي شقيني سكان مركب كوي ما دحو كويدينا أنت شيء كويدينا حكم ده ما قصنا جوكتا ما يقاكو شقيسا لبدا سموضع عيسى أنت جوكتي أشكتي أنت كو شقيسا أشكتي وأبحث كوليتر وقادنا أسوق رفنا هدي هالريال وكم قيام مكديناي أنت شكتي على عربة وكل أطلع صبح بروسكي وطا مركز كل صبح وحيس ماشي معناها أو قادنا يا وتنها هالموس على ضد كسر ويبريه كدب شكلت كاميرا كيف فشلتان ده إيه ده حنت الصومالي ده شيء يصير معناه شيء وكورس عربنا كشف مركز عن ده أضيق يوم شيء وحنا ده يا عم عن ده ممكن معنا أضيق سيرته أبوك عليها ده وأنا ولي الله عرف ده وش غيري هكذا ما أكتر صار هذا يو أفعالين هالسجل وحنا ده عمي عن ده البنت موجود في بيتك مش صومالية جواد يقول لي جوك صومالي معها صح مركز ده أنتوا تاي
من اللي وراك يا كوشة مركز أنا كنت أنا مشيت هنا واحد واضح أنا ليش عن تجي ناقة لا يقول هاي ما أنا إيش أوي جهلا وودر ولا هذا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله لا حول إيش سويت شفت بالعيون لا مركز أنا حامل لا والله ما شفت عيوني ما كيس ما فيرس ما عرفتي ما صارتي ما كفير ما لا ما شفت أنا ولا شافوني أنا كنت أنا عند الجدار أنا دربي أنا حيان هاي توصل تاجنا يجي نقوله كجرين بالصوت بس ليش سويت كذا حرام عليك تتكلم عن النساء ليش حرام يا ابني وحي دنبنا وحدين لما يسنس ولا شيء دقالي قبل يان جوجنا إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى اللقاء عربت اعتراض إلى اللقاء صومالي اعتراض اسكو صولا وش دنبا إنجليش محاولي يجري كاسا ورده أنا إنجليش ما قاني ويلكم باك أوكي تنو حواي فكرة هذا هراي بيرن ويلكم باك عندي إيدون أنا ذا فيديو إنه عندي إيدون وأنا قبرتها ملاح لقيه هلاي كم تاي أصحابتي القالية حدي أظهرين ولا جو كومنتيجا هوس كسوقر وحي فكرة هذا لايك شارنا معناها هكاهرن والله جور سومالية ولا شاء الله ولا شاء أسر قارة وكل معناه شيء وحن أنا مليين لايك والله فرتكم حنونس اسكال بس أيوة جنباليل قفك وجودن بها نقن كيو جوري نقو مركب رجع دمر أنت بقى أضع حتى واحد لنا ضدك عرض اللي حتى أيوة صوت ضدك عرض اللي حتى ضدك معناه شيء أو سريع أنت هوس كل واحد لنا هاي هذا حسب sidoo nii sheegay inaan dad cusub noo imaadaan waa ku faraxsanahay dadkii hore noola joogin waa u mahad celinaynaa fiidiyoga xigana insha Allah biidnillah nala socda